بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وحان هاي حليمة محمد حاسكي عبد الوهاب. waxaa dhacday Cabdiwahaab inay maalintii arbacada ahayd Nairobi magaalada CBD laga qabtay ilaa hadda maanta afraad ay tahay aanan waxba ka haynin war aan ka haynin waxaana na soo gaaray inuu Cabdiwahaab arrin Soomaaliya loo haysto maadaama uu asaga ka hadli jiray arrimaha Soomaaliya uuna markasta jeclay Soomaali say ku nabad ku hesho oo Soomaali ay Soomaali weyn dhan ay isu imaado laakiin hadda waxaa dhacday inay Soomaalida dhexdeedii ay isu isticmaalaan dad kale oo Cabdiwahaab arrin ka imaaday xafiiska ra'iisul wasaaraha Roble inay Cabdiwahaab maanta uu xiran yahay taasna oo naxdin weyn annaga maanta nagu qabatay oo arrintaasna ay tahay arrin xugaal loo haayo arrin dhab ay tahay oo la og yahay laakiin waa arrin aad looga naxa oo aad iyo aad Soomaalinimo hadii la dhaha looga naxa annagoo Soomaali isku ahnay inaan arrimahaas isku sameeyno waa laga fiican yahay laakiin maanta way dhacday laakiin waxaan rabnaa tu dambo oo saas camal sida ay ku dhicin si Soomaaliyay wax looga qabto taasaan doonaynaa Cabdiwahaabna nin shaqsi oo interest oo Soomaali kaleey malaha personal interest oo Soomaali kaleey malaha Soomaalida u joogto hooyadiis aabis uma joogan ilmihiis uma joogan laakiin magaca Soomaali ka dhimanaa ee magacaas qiimahaas leh uu rabaa qawigii Soomaali inuu soo celiyo intaas bas inta afkiisa iyo wax barashadiisa uu ku helay uu rabaa inuu Soomaali qiimo ugu yeelo laakiin hadii ay sidaan hadda aan sameeynayn ay tahayna nin kasta oo Soomaali oo soo baxana saas baa loo gali doonaa Soomaaliyay waxaa la rabaa inay waxyaalahan camal aan iska ilaalino oo dulmiga isku hayno aan iska dayno arrintan horta waa arrin xugaal loo haayo oo arrin rasmi ah oo la og yahay wax oo banaan been loo sheegayo ma aha mid kale hadii maanta Cabdiwahaab dib uu gaaro misana noloshiisa dib u imaan doono waxaa mas'uul ka ah xafiiskii ra'iisul wasaaraha Roble aan Soomaali weyn u sheegaynaa taas waana arrin la hubo oo arrin xugaal aan u soo ogaanay oo 100% السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنيقو فايزة وعبدوهاب ولاشيسة مركا أرنتان آد بان وقيروسنهاي آد بان وحنهاي إن محالي رهداي أولالكي وحو مقنيهاي أفر بريو هادا نغا مقنيهاي حقالك نوصو شيغي إناي تهاي إن حفيز كريز وزارها روبلي ونو عدصدي إن عبدوهاب لوسو قبطو marka anaga waxay nagu noqday arin aad shock ah oo xafiiska ra'iisul wasaaraha kama waligeed familka hadaanay kama filneyna Cabdiwahaab meeshaas loogu imaan doona marka waxaan islahayn meel kale in wax laga ka qabsan doonaan ma garanayno Cabdiwahaabna qof interest Soomaali kale ma laha waa nin pan African waa nin maaragtay Soomaali inay midowdo jecel marka wax alla wax uu dambiyo oo aan ku ognahay ama aan kutub oo lagu tuhmay malaha waxa only oo loo haysto waxa way opinion kaada waxa uu sheegtay adduunka meel walba la joogo adduunka meel walba freedom speech jiro mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac